وعن أو ناكسن داوديال كسو دوادا ورarkii ugu dambeeyay oo idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena subaxnimada waxaa kamid ah dawladda Turkiga oo ciidamo boolis ah u soo diraysa Soomaaliya adaba ciidamadaasi maxay yihiin masraakiil tababar siinaysa ciidamada dawladda ah mase waa kuwa nabad ilaalin ah warkeena ayaan si toos ah uga qaada dhigi doonaa dhinaca kale dawladda federaalka ee Soomaaliya oo joojisay waxyaabihii ay u dhoofi jirtay dalka Kenya iyo dagaal qaawan oo hadda Soomaaliya ay ku qaadayso dalka Kenya iyadoo qorshuhu yahay in marka hore dawladda Kenya laga joojiyo waxyaabihii ay u dhoofi jirtay Soomaaliya oo ahaa sida kalluunka qalalan iyo sidoo kale waxyaabo badan oo ugu jirto beenyada iyo ganacsi badan oo Soomaaliya ay dalka Kenya u dhoofi jirtay taas oo iyaguna ay ka sii macaashi jireen maxay tahay qorshaha kale ee Soomaaliya doonayso iyo sababta keentay in xilligan xuduudka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya la xiro iyo sidoo kale duulimaadyadii aadi jiray dalka Kenya maxaa cusub oo ka soo kordhay xaaladda Kenya iyo Soomaaliya warbixinteena ayaad ku daawan doontaan dhinaca kale magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa waxa gaaray Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame gudoomiyaha xisbiga wadajir sidoo kalena ah musharax madaxweyne isaguna doonaya kursiga tirsigiisu yahay hoob 138 Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaana wajahaya loolankii ugu adkaa ee abid u musharax xildhibaan wajaho isaguna musharaxiintii ugu cuslaa oo isugu jira ganacsato iyo siyaasiyiin waaweyn loolan la geli doono wararka qaar ayaana sheegaya in beesha kursiga uu kala dhaxeeyo beesha Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka dhashay ay diidan yihiin inuu soo sharaxo maadaama uu leeyahay hansar oo ah musharax madaxweyne beelaha kursiga uu ka dhaxeeyo ayaa shaki weyn ka muujiyay damaca Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku doonaya kursiga iyadoona ay sheegeen in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uusan u qalmin kursiga beeshan iyo inuu matalo maadaama ujeedkiisu uu yahay inuu ku dangaaro ee uusan ahayn ujeedkiisu inuu ku caawiyo shacabka iyo dadka deegaanka ee iskala kursigan haddaba isqabqabsiga iyo diidmada dadka kursigan iska leh ayaa soo shaacbahaya xilli Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku tagay musharax xildhibaan magaalada Dhuusamareeb iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu badray mowqifkiisii ahaa kursiga maadaama hadallo badan oo xanaf leh hawada loo soo mariyay odayaasha deegaanka oo ka soo horjeestay imaashaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku tagay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug qodobada iyo kuwo kale oo xasaasi ah ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan daawadayaal fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqatay janaalkeena calanka TV subscribe dhoo program barnaamijka si aad noqdo daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena aan ku bilaabay dawladda Turkiga ee uu hogaamiyo madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa madaxweyne Farmaajo u ballan qaaday in ciidamo boolis ah gaar ahaan saraakiil tababara kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya loogu deeqi doono dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoona la sheegay in dhawaan saraakiishaasi ay soo gaari doonaan magaalada Muqdisho si ay tababaro xoogan u siiyaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska ah ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka madaxweyne Farmaajo ayaa ka codsaday dawladda Turkiga Ruushia iyo dawlado kale oo fara badan inay ka caawiyaan dhismaha ciidanka balse markan Turkiga ayaa markii ugu horeysay ciyaaraysa doorkeedii ahaa inay caawiso ciidamada booliska maadaama ay waqti badan gelisay dhisidda ciidamada militariga ah ee dawladda federaalka ee Soomaaliya codsiga madaxweyne Farmaajo ayaa ku qotomay in ciidanka booliska Soomaaliya ay u baahan yihiin in la siiyo tababaro dheeri ah balse ay ku qaataan gudaha dalka iyadoona ballanqaadka madaxweyne Farmaajo uu Rajab Tayyip Erdogan ka dhabayn doono sida la sheegay saraakiishan ayaana tababaro kala duwan siin doono ciidamada booliska dawladda dhexe iyadoona saraakiishan loo dhisi doono xiriir cusub oo laga hirgeliyo magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa ilaa haatan isku dayaya inuu soo saaro ciidamo kala duwan oo tayo leh maadaama boolisku ay yihiin kuwa la falgala shacabka wuxuu madaxweyne Farmaajo go'aansaday in lagu tababaro gudaha dalka dhanka kale warbixinta ayaa sheegaysa in dawladda federaalka Soomaaliya ay bixinayso qarashka ka baxaya tababarayaashaasi imaanaya magaalada Muqdisho si ay u carabiyaan ciidamada booliska ee hadda jira iyo kuwa cusub ee hadda kadib la soo saari doono warkan ayaa ku soo aadaya xilli madaxweyne Farmaajo uu soo diyaarinayo loolan uu la galo siyaasiyiin hore xilli uu soo qaabtay dalka isagoona uu sugayo
tartan adag iyo inuu mar kale kusoo laabto xukunka dalka. wararka kale ee xiisaha leh aad barnaamijkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka ee Soomaaliya oo joojisay waxyaabihii loo dhoofin jiray dalka Kenya iyo sidoo kale amar dhawaan lagu dhawaaqayo oo ah in xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya la xiray iyo in sidoo kale la joojinayo safaradii labada dal ay soo gudbayeen oo la xayiray duulimaadyadii u dhaxeeyay dowladda Kenya iyo Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaa sida la sheegay qorsheynaya in duulaan toos ah lagu qaado dowladda Kenya iyadoona warbixinada qaar ay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga ah heegan la geliyay si loo joojiyo darbiga Kenya ee ka dhisayso xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. madaxweyne Farmaajo ayaa markii saddexaad joojiyay darbi Kenya ay doonaysay in ka dhisto ta u dhaxaysa Soomaaliya iyo xadbeenaadka iyagu ay xoog ku haystaan. ciidamadan heeganka la geliyay ayaa la sheegay inuu horboodayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage oo ka amar qaadanayo madaxweyne Farmaajo. walow Roble uu isku dayay in arrintaasi uu hor istaago balse taliyaha ayaa dhagaha ka furiistay isagoo sidoo kale amar ku bixiyay taliyaha ciidanka dhulka General Bixi inuu ka howlgalo xadka sidoo kalena heegan uu galiyo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay jawaab uga bixiyaan haddii mar kale Kenya ay isku daydo inay dhisto xadka. dhinaca kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si toos ah ugu baaqday in la joojiyay waxyaabihii loo dhoofin jiray dowladda Kenya ee ahaa malayga qalalan iyo sidoo kale beenyada iyo waxyaabo badan oo muhiim u ahaa ay ka faa'iideysan jireen dadka reer Kenya. dowladda dhexe ayaa markan dagaal diblomaasiyadeed qaab ka baxsan ugu jawaabaysa dowladda Kenya oo hadda soo kala dhexgalay khilaaf kale oo aad u awood badan kadib shirkii loo isku arkay ee Addis Ababa. madaxweynayaasha Djibouti iyo Kenya ayaa isku dayay inay madaxweyne Farmaajo la hadlaan balse madaxweyne Farmaajo ayaa arrintaas ka diiday iyadoona fariin aan lagu farxin ay ugu dhiibeen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya walow markii dambe barnaamijkaasi uu noqday mid uu ku gacan saaro ra'iisul wasaare Abiy. haddaba khilaaf cusub ayaa soo kala dhexgalay Soomaaliya iyo Kenya lamana yaqaano halka uu ku biyo doono isagoona madaxweyne Uhuru Kenyatta isku dayay in madaxweyne Farmaajo uu soo jilco maadaama uu hadda ku jiro tartan doorasho oo adag isagoona la galaya siyaasiyiin ay wataan Djibouti, Kenya, Imaaraadka iyo sidoo kale dalal kale oo Carabeed. madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkeysanaya go'aankiisii ahaa in badda taaka ka mid ah Soomaaliya aysan ka qaadan karin Kenya iyo dowlad kala toona. dhinaca kale magaalada Dhuusamareeb waxaa ka soconaya kulamo gooni-gooniya iyadoona shalay uu gaaray Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame gudoomiyaha xisbiga Wadajir sidoo kalena ah musharax madaxweyne. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa markii hore magaalada Dhuusamareeb ku tagay ujeed ah inuu yahay musharax xildhibaan balse kadib go'aankiisi bedelay kadib markii beelaha uu ka dhaxeeyo kursiga tirsigiisu yahay 138 ay ka soo horjeesteen imaatanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo sidoo kale inuu u tartamo kursiga iyagoona sheegay inuusan matalaad dhab ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur u ahayn dadka deegaanka iyo shacabka uu ka dhaxeeyo kursigaasi maadaama uu ku doonayo inuu noqdo madaxweyne oo kali ah. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidoo kale ku eedeeyay inuu hadda ka hor mas'uul u soo noqday beesha kursigan oo ku fashilmay inuu waxba yaraatay u qabto dadka deegaanka. Cabdiraxmaan ayaana hadda wajahaya cadaadiskii ugu adkaa isagoona la rajeynayo inuu dib isaga soo laabtay magaalada Muqdisho maadaama uusan si toos ah u shaacin inuu yahay musharax xildhibaan. haddaba halka waxaa inooga wararkeena subaxnimo fadan daawada haddii ay tahay marka koobaad soo booqato channelkeena Calanka TV subscribe oo furagan balalka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena.